waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo aad iyo aad u ah xasaasi oo taagan oo khuseeya kulligood ummaddeena Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa muddo ayaantan waa aamusay ayaantan kanaad yeeshay ayaantan hadii anu waxaan awalba ka hadli jiray muxuu ahaa dadka Soomaalida dhexdooda kama hadlo waxaan ka hadlaa cadowga dibadda dalka hagardaamiyay muddo dhan 30 sano qaarkood Ilaahay waa naga sii jeedshay oo iyaga isku mashquulsan qaarna wali waa nagu soo jeedaan waxaan rabaa laakiin inaan hormariyo arrinta doorashooyinka doorashada tan 2020 wax badan baa la sugayay waxaana asaas u ah dastuurka Soomaaliya isbedel markasta inuu dhaco siyaasadeed oo ah sunno wanaagsan oo ummadu ku horumaraan waqtigii isbedelku dhici lahaa waa la taagan yahay saad ogtihiin waxay ahayd 2009kii in doorasho dalka ka dhacdo oo lagu soo ansixiyay in bagaas dowladda ku meel gaarka ahayd ee federaalka ahayd ma dhicin 2016kii baa la doorasho waa inay dhacdaa xor ah qof iyo cod ma dhicin dad ban baa dhacday waayahay waxa la yidhi tan haday dhacday 2020 doorashada soo socoto waa inay noqdaa doorasho xisbi iyo qof iyo cod halkaasaan orod ka bilownay xisbiga anu aan madaxda ka ahay la yiraahdo xisbiga garsoor waa xisbiga ugu horeeyay oo qaata shahaado aqoonsi guddiga doorashooyinka qaranka madaxa bannaan ka qaata orodkaan bilownay iyo xawligaan u ordaynay waxaan gaarsiinay inaan meel walba ka furo degmooyinka iyo gobollada dalka laga soo bilaabo Aroola ilaa muxuu ahaa gobolka Bari ilaa gobolka Gedo Buulaxaawo iyo inta u dhaxaysa oo caasimadda qaranku ku jirto halka markaan marayno ummadda Soomaaliyeed jihadaas ay u jeensatay oo himiladeedii noqotay alla ilaa maanta waxa idin soo noqday awoodii aad lahaydeen oo qof walba Soomaaliya xaq u lahaa inuu cod bixiyo doortana dadka shaqada loo dhiibayo oo adeegaha u noqonaya dadka Soomaaliyeed waqti dhaweyd arrinta iyada ahayd waa laga leexday waxa loo leexday kuwii hore u soo dhici jiray arabta waxay tiraahdaa Salim ma yazal meheratu Salim ma yazal meheratu yani kama gaboobin hebel meheradiisi arrintii ahayd in maalin walba qabiil lagu noqdo oo doorashada ban la aado laga zuuli waa dad bay macaanta laakiin dan shacbiga Soomaaliyeed uma aha waayeelay barlamaanku waa ansixiyay iyadoo la tixgelinayo heshiiska dhexmaray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka bishii September baan u maleynayaa inay ahayd markaan ansixinay timetable baa la qoray waxa la qoray muxuu ahaa jadwal baa la qoray doorashadu ku dhacayso waana lagu heshiiyay waqtigii dhici lahayd iyo say u dhici lahayd intaba waxaa nasiib daraa ayadiina maanta in xad lagu heshiin lahayd ayada laftigeedii oo shalay lagu heshiiyay oo looga leexday jid cad oo ahaa jidkii saxda ahaa oo dastuuriga ahaa oo sharciga ahaa bahashi looga leexdo la aaday tii dadbanayd ayadii baa shaqeynay arrintaas waxay keentay fara isku taagtaag isku qaylin dawladdii iyo dad murashaxiin ah ama musharaxiin sida Soomaalidu u taqaano kelimadu murashax weeyo biluga carabiga laakiin anagu musharax baan dhanaana musharax wixii la qalaa la yiraahdaa moogta inay isqabsadaan oo waliba ay keento kala qaybin shacbiga Soomaaliyeed oo keeni karta ammaan darro iyo gacan ka hadal waa ogtihiin kursiga waxa iska leh
loo tartamayo ama labada kursi oo gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo kuraasta kaleba oo xildhibaanadu ku jiraan oo wasiiradu ku jiraan yaa iskale shacbiga Soomaaliyeed baa waxa lagu diranayo oo la isku haysto oo laga yaabo shacbiga in la isku diro waxa iskale ummadda Soomaaliyeed baa ummadda Soomaaliyeed waxaadii in hadda iyada madax la isu gasho waxay noqonaysaa wax aan xaq ahayn oo fiicnayn muddo badan baa ummadda madax la isu gelinayay dadka kuraasta ku tartamaya ayagu xataa dharbaxa isku dhufan maayaan ya laakiin waxay keenaysaa heshiis la'aantoodu isku dhac umadeed bay keenaysaa 30 sano ka bacdi dawlad la'aan iyo rafaad ka adogtiin hadda anu halkan ka akhrin karin oo kulligeen aan wada galay in maantay doorashadii oo lagu heshiiyay oo wada ogolahayd in la isku qabsado oo cari gaarto oo la isu dhaarto waxa qama annagu dadka Soomaaliyeed baan ka mid nahay mas'uuliyiinta xisbiyada hogaaminaysay baan nahay way iska aqbalay waa laqnay hadii goboladii iyo dawladda heshiisay waa u jeednaa waxaan marka waxaan rabnaa inaan ka digno oo ummadda Soomaaliyeed uga digno inaan la iska horkeen dadka kuraasta doonaya waxa laga rabaa inay iyagu khilaafaadkooda xaliyaan waxa iyaga yaqaana dadka kuraasta isku haya oo murashaxnimada ku tartamaya kuraasta waa lagu tartamaya dawladda Mareykanka waa ogtiin shidada hadda ka taagan laakiin waa dawlad weyn oo leh deep state waxa la yiraahdo dawlad qodan bay leedahay waxba ka dhimaysayada annaga wax yar oo hadal yar ah oo naga tagay ama isqabqabsi ama farisku taagida yaa laga yaabaa inuu inoo geeyo dhibaato badan oo ayna ka soo waaqsan iyo dhiig arinta ayada laga wantoobo oo cidda ku kacdana waxay muujinaysaa mas'uuliyadda ay u tartamayso inaysan istaahilin ciddii dadka Soomaaliyeed isku dirta oo qorta isu gelisa kursiga la weyne dadkii dalka uu rabo inuu qofkaas xukumo lama weyna waxaan rabnaa dawladda iyo murashaxiinta isku haysata qaabka doorashada in inta isor fariistaan waa Soomaaliyeed waxa baasan oo la kala sheeganayo la dhageysto oo la xaliyo haddaysan inta awoodi karin hadana waxay la tahay hogaankoodu wuxuu noqonayaa hogaan su'aal saaran tahay annagu hadana xisbiga garsoor waxaan diyaar u nahay inaan dhexdhexaadin haddaysan iyagu heshiin karin inaan dhex galno aniga shakhsiyan gudoomiye ku-xigeenkayga xogayaha guud ee xisbiga dhalinyarada guddi baan u saaraynaa waa dhexdhexaadinaynaa waa ka warqaadaynaa dawladda iyo nimanka murashaxiinta oo leh waxa khaldan waxba khaldan waa ka dhageysanaynaa waana u gudbinaynaa dawladdana waxaan rabnaa inayna dhageysato oo aqbasho wixii looga garleeyahay ayagana wixii looga garleeyahay inay aqbalaan way hadii kala doorasho meesha ka dhici lahayd dirir iyo dagaal iyo kala tag iyo dadka Soomaaliyeed oo la isku diro waa bedelkeedu noqonaya fursadda in ummadda Soomaaliyeed la dhaafiyo waa ka digaynaa haddii aad ku heshiin weydaan doorashada dadban hadda marka loo soo celiyo tii ahayd xisbiyada taas baa lagu heshiinayaa Soomaaliya oo dhan ay rabtaa qof iyo cod iyo xisbiyo diyaar baan anagu taxafiisyadii iyo hawlahaygii waa diyaar guddiga doorashooyinka qaranku waa diyaar boqolkiiba gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka madaxa bannaan Xalimo Yaray waxay ugu tiri waa dhexdaas hore boqolkiiba 90 waa diyaarinay sidii doorashada loo qaban lahaa haddii aan lagu heshiinayn midda dadban midda toosneed la aado annaku sidaan sheegnay shirkaan jaraa'id waxaan u qabtay inaan diyaar u nahay doorashadaas inay dhacdo inaan rabno waxa khilaafaadka ah oo la isku hayo oo yaryarna inaan ka saaro turxaan bixino oo aanu dawladda iyo isor fariisino dadka mucaaradka murashaxiinta
oo waxa ay ka hadlayaan ama diidan yihiin la soo dhigo halkaasna heshiis lagu gaaro cidda heshiiska diidan aanu dadka Soomaaliyeed u sheegno intaas waxa weeye inta ku saabsan doorashada saacadan laga bilaabo ofarkaas ama haddii ay ku ron yahay fursadaas ah inaanu diyaar u nahay inaan heshiisiino haddii ay rabaan xataa ha ku soo dareen ciddii ay doonayaan oo kalsoon yihiin laakiin anagu xisbi ahaan baan mas'uul ka nahay xisbiga mas'uul ka nahay waanu u bandhigaynaa bandhig in muxuu ahaa shuruud la'aana inaanu dhex galno dawladda iyo dadka doonaya muxuu ahaa waxba qaldan leh runtiina waxa weeye anu waxa laga yaabaa inaad tirahdaan dawladda ka mid tahay xildhibaan baa tahay waa run laakiin haddana dhinacna maaha waxaan ahay dhinac dadka Soomaaliyeed baan iyo dantii maslaxadda Soomaaliyeed dawladda dadka Soomaaliyeed baa iska leh inay naga duntana ma rabno in la khashkhashana ma rabno waxaan rabnaa in dawladdu qof maaha oo laba maaha oo Sakariye maaha oo Cali maaha shacbiga Soomaaliyeed baa iska leh haddii aan loo turin way tabar yar tahay way dumaysaa haddii naga duntana wixii hore oo aan soo maray iyo wax ka xun baynu ku noqonaynaa marka iyadoo aan waxba la dumin hal hadlo carabka lagu wada halka markaan taa kaga baxo waxaan gelayaa arrin iyaduna muhiim ah oo ah isbedelka ka socda gobolka Geeska Afrika wala socotaan sidii dawladdan loo dhisay isbedel badan baa ka dhacay gobolka annagu inta badan haddaan Soomaalinahay isbedelada lama falgallo waayo annaga isku mashquulsan annaga jifooyin iyo reer iyo afar iyo bar isugu mashquulsan adduunkeenu waa intaas adduun weynaha kuma noolin waxaan moodaa inaan ku noolahay meel adduun ka tirsanay waxaan rabaa in la falgalo isbedelka ka socda Geeska Afrika khaasatan dawladda Itoobiya dagaal ka socda dagaalka hadda wuxuu gaaray Eritrea Suudaan waa saameeyay annagu darisna waa nahay mana ahayn oo waxaan daris ku nahay dad Soomaaliya iyo dal Soomaaliya oo ka tirsan muxuu ahaa dalka Itoobiya isticmaalku ku daray 1954 Ingiriisku bayna horta darisna laakiin hadda ka tirsan dawladdaas anu samay tiraafsani waxaan tiraafsanahay dadka Soomaaliyeed inay xor yihiin cidina aysan gumaysan karin iyagii dalkooda toon isbedelka ka socda oo dagaal wuxuu keeni karaa dhibaatooyin buu keeni karaa fursadna way jirtaa waxaan rabaa in dadka Soomaaliyeed ogaadaan khatartaas soo socota oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan ahayn jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya in laga tashado oo maamulada Soomaaliyeed ee kala duwan oo ku kala baahsan Geeska Afrika oo qaar dawlado yihiin sida dawladda Soomaaliya iyo dawladda Djibouti inay ayadoo aan cidna wax loo dhimayn oo dhibta ayada dadkaas dhibaatada haysata aanu isaga xijaabnaa oo aysan wax nooga soo gaarin ayaguna waa daris haddii ay heshiinayaan ay muxuu ahaa heshiiyaan laakiin annaga waxaan quseeyaa waxa weeye inaan dhibtoodana soo gaarin wixii fursada oo noogu jira hawshaasna aanu gallo waxaan u baahan tahay dad istaraatiijistayaal ah oo geostrategy yaqaana inay arrintaas ka sameeyaan daraasad inta ka sameeyaan oo ka kooban ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxa oo kale markay dhacaan ummaduhu waa ka shiraan waa ka showraan aqoonyahan baa loo diraa haddii la ku ron yahay muxuu ahaa markaas waxa la dhigaa strategy oo haddii dhib ka imanaysa la yiraahdo dhibta saasaynu isaga difaacayna ama qaxooti ha noqdeen ama shida kale ha ahaato ama dad hubaysan ha noqdeen haddii dheefi ku jirtana dheeftaas sidii loo dheefsan lahaa looga hadlo adduunka dhan waa saas marka annagu waxaan la yaabanahay laxbukani abaarmo annagu un baa isu jeedna caalamkana ma lihin taana intaas baan ku dhaafahayaa waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga annaga iyo Kenya saad ogtiin Ethiopia muddo hadda dhowr sano iyada isku jeensatay laakiin Kenya waxay gashay booskii nidaamkii Tigreega oo hadda dagaalku ku socda aynu wahaysay waana ogtiin oo goboladaas
koonfurta oo dalka xiga anigu 3 sano ka hadlayay iyo bar nasiib wanaag haddii maanta dawladdii anigu wixii aan sheegi jiray ay garatay oo xiriirka u jartay oo kulaysay waanu markaa waxaan ahay muxuu ahaa message-ka leega rabay ama risaaladii leega rabay waa gudubtay waad la socotaan media haddaad tihiin 3 sano iyo bar aniga kaliya ka hadli jiray ama barlamaanka aan ka hadlo ama media aan ka hadlo